goobtan indhihiina ay bilicdeedu soo qabanayso waa mid ka mid ah goobaha dalxiiska degmada Hilibaa ee gobolka Banaadir. dhawaqa muusiga kabanka ee lagu laray codka macaan waa astaanta dalxiisayaasha halkan u soo dalxiis tagay. kumanaan ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa halkan iyo goobo kale u dalxiis taga xilliyada ay fursadaha hayaan ama ay fasaxa kooban ay ku jiraan. hadba waxay ku luqeynayaan iyagoo kabanka la raacaya heesaha midka ay ugu jecel yihiin waxayna ku qaadayaan jawi degan oo aad u macaan badan. qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa leh goobo sidan oo kale isla markaana daayar duqooy iyo ciroolaba ay u soo dalxiis tagaan waxaana tani ay qayb ka tahay sida ay magaalada Muqdisho dadka ku nool ay diyaar ugu yihiin in horumar ay ka sameeyaan caasimadda maadaama ay la tartamayso caasimadaha kale ee caalamka. dalxiiskooda kadib dhalinyarada halkan u soo dalxiis tagay iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Hilibaa waxa ay nala wadaageen fikirka caynkan oo kale ee ay dhalintu ugu dalxiis tagayaan qaar ka mid ah goobaha dalxiiska ee guud ahaan dalka gaar ahaan degmooyinka gobolka Banaadir. soo dalxiis tagnay degmada Hilibaa gaar ahaan waaxda Carfiid saad u jeedaan waxaan joognaa meel aad u qurux badan oo ku wacan dalxiiska waxaa socdo tartanka degmooyinka ee dalxiiska waxaana qayb ka ah wasaaradda faafinta dhaqanka iyo dalxiiska sidoo kale waxaa ka qayb qaadanayay dalxiiskan ee bulshada ku dhaqan degmada Hilibaa iyo degmooyin kale ayagoo soo dalxiis tagay inay ku qaataan meel qurux badan waqtigooda maalinta Jimcaha ah sidoo kale waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaal iyo agaasimayaal ka kala yimid degmooyinka kale gobolka Banaadir sidoo kale waxaa qayb ka ah dalxiiska warbaahinta gaarka ah warbaahinta qaranka waan u mahadcelinaynaa intii ka soo qayb gashay dalxiiskan. waxaan ku faraxsanahay waa taas Muqdisho 17 degmo looga soo dalxiis tago oo loo yimaado dalxiis degmada Hilibaa waana ammaan Muqdisho meel walba aad ka martid oo soo dalxiis tagi kartaa shacabweynaha Soomaaliyeed waxa ugu hambalyeynaya aan ugu bishaareynaya meel walba istaagtid Muqdisho waa nabad in loo soo dalxiis tagi karo degmada Hilibaa waatan ku soo dhawaada dalxiiskeeda wacan runtii maanta anaga farxad ay noo tahay
in aad maanta nagu soo booqataan ama aad noo soo dalxiis tagtaan oo aad nala aragtaan dhul in muddo ah aan isdhahaynay waa laydinkugu imaan doonaa waa laydinla arki doonaa annagu mar walba aan soo dalxiis tagi jirna laakiin maanta waxaan ku faraxsannahay in maanta shacab weyne aad u fara badan iyo madax kala duwan inay noo soo dalxiis tagaan nalana arkaan meeshan quruxda badan ee aan mar walba u soo damaashaa tagno una soo dalxiis tagno waayihii ugu dambeeyey dadka dalxiisayaasha ee magaalada muqdisho waxay aad u xiiseynayeen inay u dalxiis tagaan degmooyinka kaxda daynile hilwaa iyo weliba deegaanka daarusalaam oo intuba dhalinta soomaaliyeed ay ka helaan dalxiis wanaagsan lehna neecaw aad u udgoon Saki Ibrahim Ali, Som News TV, Mogadishu.